وعليكم السلام ورحمة الله ورئيس شكل تربية الله وابعنا شكرت على ربا مركتي ورئيس ياسد أقعب الإمات وغاسي وعاناتي ورئيس وقرتي marka waxyaabahaas kale kamid ah waxyaabihii ku dhiirigeliyay inaad ku soo sii socdo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابنا داونيسا وحنا لنا السود هذا. برنامج كان وبرنامج تحنا هو كوري صندوقنا ضد كصومالي هو عاصم هديهن فنانين هديهن جلايال هديهن عضيال سيدو كله هديهن ضد برشة سمعات كله خبرته البعض هذا. وحنا كبلن قالنا ما نور بقينا نذين كانوا قف عصب iyo skillskiisa cusub hadii uu yahay dadkii hore u jiray hadii uu yahay dadka dhaxda ka soo bilaabay iyo hadii uu yahay dadka hadda sanadkan macnaha mutaqaana Fimoska soo noqday waxaa maanta masraxa studio ay wala sugan walaalkayga saaxiibkayga Cabdicasiis Nagay Koronto oo aad ku taqaanaan bahda filmiska codad kala duwan ha ahaadaan codadka waalidiinta kuwa laadarada iyo codadka actresska waxaan rabnaa inaan ka wareysano Cabdicasiis Nagay Koronto skillskiisa sababta ku kaliftay inuu soo galo bahda codeynta iyo wixii ka horeeyay filmis inuu wax codeeyo waxay ahaayeen Cabdicasiis Nagay Koronto ku soo dhaw studio ma santahay ku dhawahay studio-ha aad ma santahay saaxiib ugu qaali ah Cabdirasaaq Jakarta adiga iyo kamaan daawadayaasha waxaan leeyahay waqti qurux badan ay rajeynaa barnaamijkan ugu dhawahay aad ma santahay Nagay waxaan rabnaa inaan ku weydiino dhowr su'aal ah xirfadaadii hore maxay ahayd inta aadan ku soo birin aflaam turjuminta waa su'aal aad wanaagsan inta aanan ku soo birin aflaanta marto qofka ragga waxaa waaye marxalado kala duwan uu soo maraa sax waxayna dhahaan qofka ragga Soomaalida waa qofka kaca kufa istaaga jabhadeen waxaa laga soo bilaabay iyo sheeko dheer meel aad صح هذا واحد كسر قطعة كاملة حرفته دوين هي صحفي صح ولو حرفته إسكاب بدنايا ومرمل وقتي كل دون مجال ذا المجري وكلا أرض بدل مجال ذا الوساقاتي ووقت عرض ذا سوكري صح أنا نبضي وسبي عن واحد ده أنا يراس ورجال حتى هذا شيء يدو بالجبهة تقولدي نحن marka adiga marxalado badan xirfadeedu ugu fiicneed waxay ahayd inaan suxufi ahaa oo midaan jiraanimadan ay gadaal dambe iga soo biirtay sax marka suxufinimadan waxaad rabnaa inaad noo sheegto idaacaddii ugu horreysay aad suxufi ka noqoto iyo barnaamijkii ugu horreysay adiga ay kugu casuumaan oo markaas active aad ku noqotay waa sax saxaafadda waxaa soo galay horta 2011 ومركز صحافة برتي معلمي أها أستاذ إلهام أستاذ إبراهيم يو أستاذ كلا هو إلهام وصحفيها علاون حارست وكشقين جري فيو دي راديو حمر صح واللي جري محمود علي بوليست صح أي معلم كي هاين صح أنتو لابد راح يصبري كدبنا إذا عدو يقول ترينين أما توبرك قاطع صحفي نموه فيو دي راديو حمر صح واجا waxa agaasimin oo ka jeclaa agaasimin ku xigeen san jeclahay Ilyas Daoud oo ah suxuf weyn oo leeqaan marka kadib waxa xigtay oo aan mar ayadana imid idaacadii Orangery Simba wali way jirtaa صح waxa jira radio kale ay dhihi jireen Africa oo isna Simba ka agdhawa idaacado badan adiga sidaas taxana u soo maray ilaa adiga markii ugu dambeysay aan arkay aan codeyn dhaxtaagan waa hagaag dhowr idaacado baa noo sheegtay oo aad skills kale xirfadaada macnaha saxaafadnimo journalism ahaan aad kusoo bandhigtay waxaad kaloo noo sheegtay inaad gudaha filmiska adoo ku dhex jira is aragtay waxaan rabnaa inaad noo sii bayaaniso qaabka aad kusoo gashay filmiska dabcan astaan baad joogtaa oo hadda aad ka tahay bahda codeynta aflaamta ma jirta astaan meel ka horeysay oo aad film aad kusoo codeysay
mise automaticada staan soo gashay meel ka horreysay aan film kusoo celiyay horta ma jirto sax laakiin inaan jiraa iyo waxaan samayn jiray xafladaha inaan tago ayaan comedy-ga jeedi jiray barnaamijka qaban jirtay sax marna qaab xiriirin camal aan wariyaan ahaa qaab xiriirin camal lagu wici jiray marna qaab comedy aan u tegi jiray marka comedy-gana intaan iskuulkii iyo dhiganayay iyo taabuurada iyo kusoo caanbaxay oo dadkii iskuulkiisa la dhiganaynay iyo dhallinyaradii ay dhiirigelin jireen mar walba kadib waxaan arkay dadku hadday ku qaadqaadaan waxaa meelay ku geeyaan marka waa ku fiican tahay soo jeedintaad ku fiican tahay intaad ku fiican tahay dadka ka qoslin kartaa sheekooyin waxbaan diyaarin jiray asxaab qaar oo iga horreeyo jilaayaal taageeri jiray qofka ku daydaa ciyaaryahan ku daydaa jiro marka asxaab aan ku dayin jiro waxaa ka mid ahaa odaango oo kale jilaa kuku riwaayadihiis oo kale marshaal oo kale aad ugu tixnaan jiray xitaa waxaan isku dayi jirnaa bal codadkooda xitaa bal inaan isku dayi kara inaan koobigareeyo xilliaad ka hor xasuustaa marshaal codkiisa mar inaan koobigareeyey laakiin hadda ma samayn karo waa maskaxdu ka tirmay wax la koobiyey waa marka hore looma dhalanin aad iyo aad waxaa jirtay mar aan koobigareeyey codod oo marshaal ku hadli jiray radio kulmiye ka hor shabeel uu kusoo tabin jiray wax badan ka koobigareeyey oo waxyaabihii dadka inay u buushgareeyaan inaan jilaa ahay sababa ka mid ahaa sida maruu iska dhigaayo iriso nima yidhahdaan awaaku salaam marka horeysa sheekaa tirbita allah waa macnaan jakarta waxaa laga rabaa markiid i wareysaysid ag camal inaad xogaasi oo aaneed i wareysatid waa gartay marka waxyaabahaas kale ka mid ah waxyaabihii ku dhiirigeliyey inaad kusoo sii socdo sidoo kale waxaan isu yeeli jiray codod kale ay ka mid ahaayeen xaaji lugooyin ma aqoon jirin riwaayadaha ka daawan jiray xaaji lugooyo taajir inaan jeclahay mid ka mid ah waxay haddana loo tuuri kartay maaladad horta marka hore waa loo baahan yahay dadkana daawanaya inay horta marka hore noo sacbiyaan weliba annaga muhiimad gaara noo yeeshaan hadday noo yeelan waayaan laka anagu waynu xanaaqayna aad iyo aad cabdicays koronto waxaa noo sheegtay in fi muslimada iyo inaad nolosha kala soo qaybsatay qayb oo saxaafadda ah markii idaacada iyo raadiyo kala duwan kasoo shaqaysay sidoo kale dad baa role model ku ahaa oo dhahday waan ku daysan jiray dhowaan dhowr qofood baad codkooda isku dayday markii loo eego dhanka hadda ugu dambeyn aad joogto filmiska markii la dhaho qaybta saxaafadda codkaada waxaa laga yaabaa inuu jilayn kale si kale ugu furnaa markan dad badan oo shacbiyada ku taageeraan jiro oo astaan ka mid ah soo marka codad waalid codad laadareen muslaad hindiya iyo kuwa turkiya wax ka wadaa jiro marka maxay ku kala duwan yihiin kuwii saxaafadda iyo kuwan hadda aad ku dhex jirto sababtoo kuwan waa filmis qof baa iska dhigaysaa wuu oynaya wuu dagaalamaya wuu qoslaya waxaa rabnaa adigoo waxyar nooga taabanaya noo bayaaninaya iyo adigoo noogu daray habjiliin ka mid ah kuwii ugu dambeeyaad samayso waa sax in badan horta waa ka warqabtaa shaqada oo igula jirtaa laakiin daawadayaashaan ogeen sax daawadayaasha marka su-aasha aad uga jawaabo waxay tahay way kala duwan tahay tii hore iyo tan waxay uga duwan tahay tii hore saad sheegtay subaxii guriga waxaa kasoo dhexaysa adoo faraxsan sax tusaale jawigaada uu yahay mid qurux badan goobtaada shaqadaad imaanaysaa waxa laga shaqeynayo waa aflaan ama hindi ama musalsal ama waxay doonaan ama badaano waxaa la kulmaysaa jawi aad ka duwan jawigaa guriga kasoo tagtay maadaama farxad ku timid waxaa laga yaabaa maalintaas dhan shaqadaada inay noqoto musalsal muruga ah oday hooynaaya mid tacsi u taalo mid gabar ka dhimatay mid islaan laga dilay sheekada waxaa marka kusoo dhexaysa maalintaas oo dhan inaad ku shaqaynaysay jiliin ama ooyin marka shaqada waqtigaad soo gashay 10 daqiiqo kadib waxaad noqonaysaa qof jawigaas ku dhex jiro adiga dhan waxaad dhex gelaysaa noloshii jiliinka waad murugaysantaha maalintaas oo dhan waad qiiraysantaha qofku arkuu dareemaa maalinkii guriga aad murug uga soo tagto tusaale familiga ama buuq ama marxalada iyadoo iska jiraan kasoo tagto shaqadeeda noqoto jawi farxadeed gabadhiisa gulbinay waxyaabahaas waxaad qabsanaysaa noloshii farxadda marka maalintaas oo dhan waad faraxsantahay xanaaqi iyo wixii oo dhan gurigaad uga soo tagtay aad iyo aad waxaa baa dadweynaha inaan xasuusiyo waxaa jira musta la yidhaahdo booliyo caashaq oo wado aktarka weyne miran herchai musta la yidhaahdo waxaad u hadlaysaa nin la yidhahdo hazaad jaad oglow oo taxanaha ku leh door aad iyo aad u weyn way jiraan doorar kale iyo turkiya kala gashay laakiin ninkaasi hazaad waa ninkaan arkay dhaqdhaqaaqa markaan arko tiktok iyo asxaabta anigana ay weydiiyaan dhahaan hazaad noo keen bay dhahaan magacaada naga iyo kulanta xitaa way keen
bal waxaan rabaa hazaad shaad oglow mar asagoo faraxsan iyo mar asagoo xanaaqsan inaad ku turto way isagoo faraxsan ku hormarno isagoo xanaaqsan asagoo faraxsan goor mar farxadda waan marinaynaa way gabadhayda rayaan run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay aniga inaad uur leedahay weliba aad cunugii ugu horreeyay caloosha ku sido farxad weyna ii tahay inteeda kale miiraan iyo adiga nolosha aad wada qaadanaysaan waxay noqon doontaa mid inta cumrigiina ka dhiman aad wada qaadan doontaan anigana waxaan jeclahay annagoo family dhammaystiran ah inaan hal meel wada degno dalxiis wada baxno waqti qurux badan wada qaadan waqti qurux badan waa farxad ku labanta okay adiga xanaaqsan oo aad isqabateen wadaadkii ama casiis asalaam bay oo kale aad isqabateen aad xanaaqsan caraysan horta qumiyadeeda iyo balaminoosa aad iyo aad inaan noogu tursan dunya عزيزة وقبرية قرقينا النغط يردين الدم أسوء استاقن ريتشا قبلنا محدود بالتالي تاري ري أسلام بي أنا وين النبي أنت ينوكل أنت ما أنا نقول بحصلين الملا عجوزية قرقينا نرى مصيب وحنا بلعبة ما أنت النوتمي وريا قاعدين بل كلام مليه ميا كان مالك أنا وش قتلت تمام ويسي يا أخي أبو عزيزة من غير يمكن تدنيا ما حد هو ده عزيزة وين اللي بتاعنا هذه وأمركو ديكو كعوة وانت امتحانها صديقة دوبة يعني وين جوي مرة إليه وهو يدا أصو أنت أصو سنة يسود بيسي أنت أصو سود بيسي ومعناها يسكت دري أدبو نعمنا هذا ما حدا وبسلامتي كل شيء عزيز السلام بي عزيز ما أنا هو يدا يا عزيز ما أنا إيش قوم يلا اسمعني هو يدا يقول من نفكر أنا هو يدا ما هو رأيي مت هو يدا ما عزيزه وين هو يدا هرات تبلاي هو يدا مصيبة طبعا داوديال وعبد العزيز النجي كورنتو شخصيتي سمركا وحكت المامنو waxa uu soo maray bah saxaafad journalism oo muddo uu ku soo dhex jiray 2011 soo start gareeyay ugu dambeyn saxaafadii ilaa 2022 inuu soo gaaray heer microphone maanta wuxuu ka mid yahay bahda Astaan TV qaybta Astaan Films uu ka mid yahay waliba wuxuu ka mid yahay dadka ragcadaaga ah bahda codaynta markaasi ragga qaarka khaas leh rag buu leeyahay oo lama taabtaan ah oo markaa filin hadduu yimaado ama musal hadduu yimaado waxaa lahaa raggan waa raggii koranta baa lahaa cid kale uma hadli karto cabdicasiis aad baan ugu faraxsanahay waqti qurux badan inaad macnaha na siiso oo aad istuudiyaha maanta aad igula sugan tahay dadweynaha kugu xiran iyo jamaahiirta shacbiyadaada maxaad leedahay oon kusoo gabagabaynaa barnaamijka waayahay waxaan usoo gabagabaynayaa codkaan uga hadlaaya firaad odigay necab yihiin aniga toban dhactahay مسلسل ساي يقول ترشد مقعد مسلسل كوعة ساي بطرلكا ها بطرلكا وجرا يمي حاجة ترى ها صح وهذه بقى هذا جرو بدن أنا متجعلي مركب الله يرضى تطلع هم لا يعرف كان يمكن بدن أو هذا يسدنا عليه يعكسنا عليه هاي وقفك مثل لودي وقفك إنه أكاد صعب خصبا لكن قفك أمر البخوف ونكسر وقلب فرينه حتى كورة حسوستا قضي لا أدري أنا بهدي المسلسل تيار دندار يعني العمر يلف وحسوستا في المسلسلات صح قضي وحنا هدي حناك بدل مركو حناك وكاميرا دم كل كسر وجهي سأل عمر يسوع إنه ديك مرصد جدكم مبارك مركا ما أنتظر وحناك نعرفه وعدد فروق كتير عقاب من جري مركا جبرة وحمان وجري أديك الصو مثل هي تبعات تيار دندار وكله صح مركا سائر كارك وقول على يساعدين مركا سدري وهي يكمل ورما قوي جدا مركا دتك وحنا ملا مركا دتك الله هالله إن عندك تبعات ولا شخصية دي سيلة ليه ملهم مركا حناق وهالله إنه أنا مساكين أنا عضت كذا كحماش مركا وهالله إنه وين هنا أنا حلقة سوين تو والله قبصنا لكن فاميلي شخصية والله كل أكتر جلين كل شيء بقلي باش وأكتر معنا من كان فيلم كان دايركتور سوشيال ميديا العقبة بالقلي شخصيا مركز دور كيس وصمينا يقف كاين مسكجو قف كي أسوق حبي وحن وعض فويس ميكر هو سمية مركز هاي سنين ما قف كم أقول دبي عاد سيدا سوون بدأي ويسفيرتي بدأي هاي محل أنا وطوط النكاس عدد كيس واحد كامل جبرتي بطريقة أنا عقولي لا بكسي سايس ده منكم إيه مصيبة ونقطة دباتين ونقطة منكم وكفعل تولك ما تأثر كتار حتى التولة وعلي هنا وأسكسو جبنا سيدا ونك منكم إنه ونبت ما بربنا هذه كسوحة وها عبد العزيز النجاي كرنتو أو صاحب كي من ولا الكي وحنا هذا فرح سنة هاي إن استوديها ما تيان ضلب كي سودي بيني أنا نجا بشو أو إن مريس كلية لأنه عبد العزيز نجاي كرنتو كلي
anigana waxaan ku leenahay saaxiibaad baad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa videogan iyo mid kale ka qurux badan inaan kula kulanno aad baan ku salaamayaa mar kalena soo dhawaan ku leeyahay waa dhawahay aad umahadsantahay adii daawadayaasha